nagu maanta waxaan ka hadlaynaa waxay tahay siyaasadda maanta iyo berrito shalayta ka hadli mayno waxaan la hadli rabana waxay yihiin xildhibaanada Soomaaliyeed ee baarlamaanka labadiisa aqal soo galay xildhibaanada waxaan leeyahay ugu horeyn waxa tahay xildhibaan Soomaaliyeed maantay bacda Allah subhanahu wa ta'ala masawirka iyo qaabka qaranka Soomaaliya uu yeelanayo adeeg gacantaada ku jiraan iyo saaxiibada waxaa loo baahan yahay wada fiican inaad u jeexdaan oo wadadaasina ay noqoto mid dalka iyo dadka ay ku badbaadaan waxaa laga yaabaa dhowr arrimood oo mararka qaarkood xildhibaanka lagu jiraa in loo baahan yahay in la isdul istaago xildhibaanka mararka qaarkood waxaa lagu leeyahay annaga ku soo saaran xildhibaanka annaga ku soo saaran markii la yiraahdo ma ahan in abaal dhigasho kaliya laga rabo laakiin xuquuq iyo awoodo iyo qiimo iyo sharaf uu leeyahay ayaa la rabaa in lagu dhimo nabiyullaahi muusa waqtigii fircoon ayaa markii risaaladii loo soo dhiibay waxaa jeclaysay fircoon waxa uu jeclaysay inuu ku abaal sheegto yiraahdo warhow kan soo kornayso matid alam nurabbika fiina walidan wa labithta fiina min umrika sinin soo adiga gurigeena kuma soo korin nabi muuse wuxuu ugu jawaabay guriga sidabta uu ku tagay ka hadla marka sababta gurigaas uu ku tagay macnaha gurigeena soo kuma soo korin oo umriga waqti kamid anagana lama joogin heeseen ku tagay waay waxa uu yiri وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل أبال شيغت كعد أبال شيغن يسون غورغا غتغي وحيبا كتم رير بنو إسرائيل إن دوليستي أو سن دوليسي أو تكو قصبت إن ويلشودنا أد كدشيد قبلها نعد ديس xildhibaan kale leeyahay waa ku soo saar deegaankaaga iyo dadkaaga oo la duleeyay oo loo diiday iyagoo ku dooran kara inay ku doortaan ayaa lagaaga abaal dhigana dambi baa lagaaga abaal dhigana maalinka dambigaas ka jawaabi lahayd bar joogtaa taas waa mid markii laga yimaado taas tan labaad waxa ay tahay xildhibaanka saas lagu soo saaray waxa sugayo haddii kuwa sidaas yeelay ee dadkii si duleysay oo doorto waxa sugayo waxa ay tahay markii uu hadli tago qadiyadaha qaranka iyo qadiyadaha deegaanka iyo qadiyadaha qof ahaaneed uu ka hadli tago waxa sugayo waxa ay tahay kursiga kuma aadan fadhiisina waa lagu fadhiisiyay annaga ku fadhiisina hoos sufiiriya ayaa sugaysa waxa loo baahan yahay waxa ay tahay marka taas inuu ka gaashato wuxuu ka gaashaaman karaa dambiga boobka ah waxa loo galay inaanay ansixin oo codkii meesha loo rabay uu ka leexiyay waxaa intaasi dhinac socda taariikhda waxa ay u dhacdaa oo in wax laga barto nidaamka hadda jira aba maamulada ha noqdo aba maxaan ku raahdaa dawladda dhexe hadda xilligeeda si dhamaanayo gaar ahaan madaxtooyada ha noqotay waxa soo doortay dad aanay iyagu soo saarin dadkaasi ma dooran kaliya waa ay la shaqeeyeen lama shaqeeyna way u shaqeeyeen waa u guulwadeeyeen uma guulwadeen kaliya waa u dakanoobeen dadkaasi intoodii badnayd maanta bannaankay taagan yihiin baarlamaanka dhex kama muuqdaan baarlamaanka kama soo dhex muuqdaan maxaa dhacay dadkaas maxaa helay hal shay baa helay faahfaahinta iyagaa idin siin doona bannaankay dhooban yihiin xildhibaanada cusub iyagaa faahfaahinta siin dooneen qori xer la-aanina dadka ila heshiiyaan hadaa dhacda dadka ila heshiiyeen oo yidhaahdeen annagana taageer waan idin taageeraynaa ayaa qori xer la-aan sameeyey oo ballanta uga baxay kan cusub haddii uu wax ku darsado kii shalayta ballanta ka baxay ee kii u guulwadeeyey ee u dakanoobay ee dulmiga u galay ee u afxumood ee mararka qaarkood wixii laga duubay uusan jeclaysanayn ninkaas in carruurtiisa ama gabadhaas carruurteeda ay dhegaysato ama bulshada Soomaaliya ay dhegaysato haddii uu codsiyo meeshaas meel ka xun baa sugaysa annagu waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed oo karaamo leh xildhibaan Soomaaliyeed deegaan uu matala ma aha inuu uga abaal haayo wax dadkiisa lagu dulmiyay deegaankaas cid ku xushmaynaysa inuu doortaa loo baahan yahay cid og inuu kursiga uu ku fadhiyo kursi uu istaahilan yahay kursi baarlamaan inuu yahay inuu deegaan ku matalo inuu dawlad Soomaaliyeed ku matalo inuu dalkan ku hagi karo cid aaminsan inuu wax la wadaago ayaa xildhibaanka